iyo waxa ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenkii ururka warbaahinta Puntland ee Maaba sheegay warbaahinta gobolku bulshada ayay u shaqeysay cid ma sharaysato laakiin hadda waxay dareentay ee guuxa sameeyay kulanka inay yeeshaan in warbaahintii la leeyahay waxyaabo badan oo aan munaasib ahayn in maamulka gobolku ay kula dhaqmaan taa waxa kamid ah hadii warbaahinta loo yeeriyo oo la yiraahdo waxa ma soo duubi kartaan waxa soo duubtaan waa la xirayaa cagajugleyntaasi dhammaan waa la qaaxay qoraal way ku qoran tahay warbaahintuna way soo bandhigtay laakiin waxaanu codsanaynaa oo madaxda Puntland ka codsanaynaa in iyo wasaaradda warfaafintuba in ay arintan faragelin ku samayso waayo warbaahinta gobolka bari dadka iyo dawladda Puntland iyo dalka ayay u adeegtaa talaabadanna waxay qeexaysaa ee dhammaan laga wada midaysan yahay ee laga shiray in gobolku ay arintiisa noqotay qabta xira haday noqotay qabta xira de waxay la tahay intaan qabta xira ay noqonin ayaa laga hortagaya iminka saad u arkaysaana shakhsi kamida warbaahinta ayaa la yiri qabta xira waxaanu soo dhaweynaynaa warbaahinta oo isku duuban arintii wasaaradda warfaafintu ka dhacday idaacaddii sahan ee Garowe habka maxkamadda loo maray maamulka gobolkana hadii uu qabo in warbaahinta ay ku xadgudubtay waxyaabihii kala duwan ee dalka sidii wasaaradda warfaafintu u martay haw marto mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadka ay wasaaradaha ay khusayso iyo mas'uuliyiinta dawladda Puntland in arintan ay faragelin ku sameeyaan hal midna waan qeexaynaa warbaahinta Puntland gaar ahaan gobolka bari marna ka daalamayso in ay shaqadeeda qabsato cagajugleen iyo waa la xirayaa 10 sano oo xabsi ah haday mutaysanayso afkooda anoo ku hadlaya way shaqeynayaan way shaqeyn jireen wayna shaqeyn doonaan waa mahadsantiin